السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ilowshiyaha degdega ah iyo sida xal looga gaadho iyo sida lagu daweeyo. ilowshiyaha degdega ah saameyn intee leeg buu hortaa ku yeeshaa maskaxda biniaadamka. sidaynu ognahay kolley maskaxdu step step bay wax u saartaa, laakiin waa xilli marka xilli kasoo wareego. laakiin ilowshiyaha degdega isagu wuxuu dhacaa sikin iyo hal minute, iyadoo aynu ognahay sometimes inay dhacdo dadka qaar wax ay qacantooda ku hayaan inay ilaawaan, ama wax ay hal ilbiriqsi ka hor ama 10 ilbiriqsi ka hor ama hal minute ka hor ay meel dhigeen inay ilaawaan. taana waxyaabo badan baa keena. horta haddaynu u guda gallo ama in yar dul istaagno waxyaabaha keena badi, horta soomaali ahaan inta dalka soomaaliya dalkii joogta ama inta qaaradda africa joogta, waynu ognahay dalka africa iyo qaaradda africa iyo dalka soomaaliyaba dabcan dawooyin tayo leh inaanay helin, dabcan oo africa inay yihiin dee qaarada iska degdegaya, dalkii soomaaliyana dalkaa iska burbura ka ah iyo xaaladaha isku dhexyaaca iskaga jiraan. haddaynu usii dhaadhacno taa laftigeeda kaarjibinta dawada la yidhaaho ama xumed jibinta, oo dad badan iminka aad moodo inay bulshada qaybaheeda kala duwan iska noqotayba wax caadiya, oo moodo qaarkood inay ay balwadaha caadiga ah ee aadamaha noloshooda weliba ta soomaalida aad uga qayb qaadatay inay iska noqotayba nolol iska caadiya ama wax iska caadiya. oo ad arkayso dhalinyaro badan ama dad badan oo hadday doonaan iska waayeelaba jeebabka iyo shandadaha ay iskaga sitaan xilliyada qaar, oo sometimes ay iskaba cunayaan. mawduuca karjibinta kolley inaynu cashar ka diyaarina ayaan insha allah haddii allah awoodda le saamaxo aynu rajeynaynaa insha allah dhowaan. laakiin waxaynu uga soconnaa karjibintu waxay leedahay ilowshiyo degdega ama ilowshiyo saayida qofka noloshiisa qayb qaadata, oo ama xaaladda qofka uu ku jiro oo ay ku samaysanto ama ku dhalisaba ilowshiyo, ama waqtiyada ka mid a noloshiisa, hadduu doono isagoo da-ah ama waqti sanado kabacdi ha noqotee ay marun ku samayn doonto. marka taa laga yimaado, taasay noqonaysa marxaladda koobaad ilowshiya degdega sameeya. marxaladda labaad oo ah ishamleelka bahalka la yidhaaho, qofka biniaadanka maskaxdiisa isna aada u dhima, gaar ahaan weliba xasuustiisa qofka. ta saddexaad oo iyaduna aynu odhan karano qofka oo meel madow t v ku daawada ama wax dee teknolojiyada ku isticmaala sida mobile ama laptop iyo wixii la halmaala. saddexdaas horta way keeneen ilowshiyaha. markaan taa ka nimaadno waxyaabaha keena maxaa biya ama maxaa sidaa xal looga gaari karaya. qofka hadduu waxyaabaha dee uu isleeyahay waad ilaaweysaa ama waxyaabahu isleeyahay waad ilowday, dabcan haddii dabcan uu maskaxdiisa dib u taxalluujiyo dikriga ilaahay iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam, uu isku xidho salliga nebigana badsado, qur-aankana, waayo qur-aanka sidaynu ognahay waxyaabo badan buu daweeyaa. qalbiga uu waasiciyo, iimaanka uu waasiciyo, aragga indhaha uu furo, maqalka oo qofka furo, madax xanuunka oo qofku xitaa uu kaga dawoobi karo, stresska oo shaydaankii iyo dee buuqa kaga weheshan karo, stresskii iyo buuqii maskaxda. taa xasuustana qofku hadduu habeenkii ku seexdo qur-aan, subaxiina markuu kaco salaada hore dhegeysto, salaada horena uu akhristo, dabcan way soo noqonaysaa xasuustiisii. kolley uu ilaahayna la tawakal saarto. kolley waxyaabahan inta kula hadlayo kolley oo wax lasoo tijaabiyey maaha, waxaan anigu dee aan maskaxdayda ka keenay ama aan isleeyahay ama dee aan dee idinka gadayo been qaawan. run ahaantii talabaad oo iyaduna ah khudrado iyo dabcan waxyaabo sharab ahaan haddaad u isticmaasho aad ka helayso ama maskaxda laga yaaba inay soo noqoto. bahalka la yidhaha frawl carabi lagu yidhaha frawla ama strawberry, soomaali ahaan garamay kolle wax lagu yidhaaho, oo bahal yaro cascas
bahalkaa kolley markaad cunitaankiisa ama shiiditaankiisa uu kaa xoojinaya soo celintii maskaxda inay maskaxdaada xoog u shaqeyso soo noqoto fikirkaagii ama memorigaagii rememberkaagii xusuustii bahalka cinabka la yidhaaho salarka caadiga ah bahasha la yidhaaho chocolatka oo iyadana haddii aad ahaan u isticmaashay ama dee jukulat ahaan u cuntaba iyadana kolley ay cilmi baadhisyadii u dambeeyey sanadihii u dambeeyey laga sameynayay dhanka caafimaadka weliba qeybta xasuusta iyo maskaxda bini aadanka ay sheegeen dhakhaatiirtu ku xuseen runtii maaha cashirkii koowaad kolley kama dhigi doona insha allah kolley waxyaaba badan oo xasuusta bini aadanka iyo maskaxda safetigeeda sidai wax u seef garayso waqtiyada wax qabato kolley insha allah waan soo wadnaa mawduucyo noocaas oo cilmi nafsiya inta ka horeysa asalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu